عثمان بن عفان الله رالي كان نقضي نبا نبي قوي مدو يدي قبض بالليسيي waxaan ku aqal galana ma haysto Usmaan u tagay buu kaydhi markaa buu yimid Usmaan bin Affan wuxuu arkay Usmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baqtiin weyday markaas ninkiiba uu yaabo wuxuu yiri ninka khaadimkiisa ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad aroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abu yiri uska kacay ismaan baa ninku yareer warkaale kale xagad u socotaa wallahi de waxaan u socday war kale hayday war kale meesha ka socday buu yiri markaas maxaad aragtay maxaad u socoto de nabiga ay ka soo diray buu yiri sallallahu alayhi wasallam yiri Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa uu nabi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal galin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nabigu ugu yiri maxaad u kacday buu igu sheeg weyday de waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yiri faynuus baad ku dagaalamaysaa oo ku haysataa khadimkaagiye wuxuu dhageysa buu ka yiri faynuuska halkaas ka shidmaayay shaqa adduunye iyo shaqa aakhira midna lagu ma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waati halkii loogu tala galay ku baxday hoo qaada buu ka yiri kiish lacag uu dhiibay saraafka iska ilaalinayeen xoolahooga meesha ilaahay ugu tala galay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga ka ilaalinayeen inagana aroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen aroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso laba bilood ma gaaraan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi lagu ma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi al-bay'i wash-shiraac علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا ورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياض السوق يقع نوح كوي بين كرام مجرب عمر ورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشين يا تايلاند بلغوا الدولي هبري با سعودة كلها تشين هاو سعودة حاجة سعودنا war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal inta yar aan joogno ilaahay aan kaga baqno oo diin aan ka qaadano oo diinteena aan baranno oo diinteena aan ka shaqeyno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa المتمسك بدينه كالقابض على الجبر ابو نبي قولي والزمن النبي محمد سي شيغي كون يا 400 سنه كهر نيجا دينتا مالنتا يرادا وان حجسن waxa uu ka dhignaan doona nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yiri bulshada ku nooshay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaadu baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya ومجتمع قفكو هدو إلى هذا ما أنت صنع النبي كفر عليك وأتكان يسألون قبصدوا إلهي يقول نبي رأيه موياني مركز زمن هذاك بانكو جرنا وحن كقبت بعدين ومحي رجوع إلى الدين إن الدين تنوصل نقولنا ودذلك الدين علماء مروا البين وقوب باقيان مساجد اللي قلنا هذين أيو مراكز اللي قلنا هذين أيو مدارس اللي قلنا هذين أيو اجتماعية الله قبنا يا أمد الله كل لو فكرها يو وردالك الدين هذا ما أنت عالم كالسعودة للربع عامدي إنه إنه علماء أنت قرب جوكسته أن ملك اللي أود جسد إن شاء الله هذا تام قدونا دالك الدين تا بس دقيستيال وناكسن ما نقولنا يا دقيستو وناكسن لو حكوا وناكسن دقيستوا من الدين ويان لكن وحال الله إن النقطة أديك الله قربا إن الدين تقيبت الله كقالته وتكقادن كرتا صحابة رسولكم نول بس صلاحية إلهي وقليي ومدوكوا أنفع